السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هانتي waxaan eegi doonaa casharkan aadka u ballaaran inta badan khaladaadka ugu badan ay ka yimaadaan waa saddexdan preposition kuwa kalena insha Allah casharka xiga ku soo qaadan doonaa in aad on bari imka soo qaadan doonaa. Waxaan ku bilaabi doonaa on waxay timaadaa before days bay timaadaa comes before days 7 days ka timaadaa qofku marka uu ka hadlayo marka tiraahdo imka I play football kubad baan ciyaaraa on Friday jimcaha I'll be back waan soo noqonayaa on Sunday haddaan soo noqonayaa we arrive home gurigan soo gaarnay on Wednesday arbacadii yacni meesha marka kastoo ay timaado toddobadii maalmood 7 dayskii on baad ka horeysiinaysaa on markaad ka horeysiiso waxaad u dhaxaysiinaysaa dhayga iyo on ma jiri doonto in baynu isleegi doonaa in waxa loo isticmaalaa seasonka yearska iyo monthska saddexdaba loo isticmaalaa marka bal waxaan ku bilaabi doonaa seasonka halkan summer bay nagu yaala we go to the beach in summer waxaan aadnaa xeebta xagaaga xilliga xagaaga waxaan aadnaa xeebta in baad isticmaalayso does it snow here halkan ma barafaa in the winter marka lagu guda jiro jiilaalka halkan ma barafaa waayahay inaha waxaan ku soo dhaafaynaa seasonska marka loo isticmaalayo monthska markaad ka hadlayso kale waxaad oran karaysaa this invented in February wax kan la ikhtiraacay January markastoo 12 bilood meesha yimaadaan preposition kaas isticmaalaysaa waa in sidoo kale waxa la isticmaalaa yearska I was born waxaan dhashay in 2020 waxaa oranaysaa I was born in markaad isticmaashay haddaba marka lagu yiraahdo xagee ku dhalatay where were you born marka lagu yiraahdo preposition ka isticmaalaysaa lagu yiraahdo xageebad ku dhalatay laguma oran goormaad dhalatay waa when were you born xilmaad dhalatay I was born waxaan dhashay in 2020 waan dhashayba 2020 baan dhashay marka lagu yiraahdo xagee ku dhalatay where were you born iyana waxaad isticmaalaysaa prepositionka in I was born in bro ayaan ku dhashay I'm still living here weli halkan ma ku noolay yacni prepositionka imika ka sii hadli doona ugu dambeeya waxa weeye at wuxuu yimaadaa comes before time waqti cayiman buu sheegaa I get up at 7 o'clock we eat something at 5 o'clock markastoo aad saacada doonayso waqti cayiman inaad ka sheegto waxaad isticmaalaysaa prepositionka loo yaqaano at sidoo kale at waxa loo isticmaalaa place I saw you at the party last night xalay waxaan kugu arkay xalfada waxaan kugu arkay I am at home gurigan jooga qofka kugu oranay karo where are you now xageed hadda joogtaa where are you now xawansa I am at home gurigan jooga preposition kaas waa place meel baa loo isticmaalayaa we have to meet at the bank waa inaan bankiga ku kulana waxaan filayaa inaad fahanteen kala duwanaanshaha loo kala isticmaalo saddexdan xaalo khaladaadka u badan ardaydu sameysayna waxa weeye arday baa wuxuu oranayaa English buu ku oranayaa have you ever been in London ma sax baa waxaan ku hadlay mise waa khalad imika waa khalad marka doonaysa inaad isticmaasho preposition kan in waa ku khalad weligaa ma tagtay America English markaad ku orayso maxay noqonaysaa have you ever been to America to waa loo isticmaalo casharkeena xiga ayaan to iyo with iyo by ku soo qaadan doonaa waa anigoo teacher Abbas Jaamac Ali ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh examples kana waan ka wada shaqeey dhamaantood waa kuwa wada saxan yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh